Itoobiya ayaa lagu hadla gashay xaalad calwasaad ah. Adduunka ayaa si weyn isha ugu haya dagaalada muddada sanadka ka socda dalkan ku yaala Geeska Afrika. Kooxda TPLF iyo taageerayaashooda ayaa horumar ka sameeyay dagaalka, taas oo keentay inuu ra'iisul wasaare Abiy Ahmed ku dhawaaqo xaalad degdeg ah iyo inuu ugu dambeyn shacabka magaalada Addis Ababa ugu baaqo inay hub ka qaataan oo iska celiyaan TPLF. Laakiin ilaa hadda waxaa gacanta sare leh kooxda Tigreega. Abiy Ahmed iyo kooxda Tigreega ayaa isugu dhacay isbedelada siyaasadeed ee uu sameeyay intii uu xukunka joogay. Cabsi weyn ayaa soo food saartay maamulka talada haya, ayay tiri BBC-du. Dadka degan magaalada Addis Ababa waxaa loogu baaqay inay is abaabulaan oo ay magaaladooda ilaashadaan. Wadamada reer galbeedka ayaa bilaabay inay diblomaasiyiintooda kala baxaan magaalada Addis Ababa, iyagoo muwaadiniintoodana weydiistay inaanay u safrin Itoobiya. Dagaalyahanada TPLF ayaa qabsaday magaalooyinka muhiimka ah ee Dasiya iyo Kambolja dhammaadkii toddobaadkan, waxayna ku sugan yihiin gobolka Amxaarada oo daris la ah Tigray, waxaana ay magaalada caasimadda ah ee Addis Ababa u jiraan wax ka yar 400 kiiloomitir. Dagaalkii ka dhacay Dasiya waxaa lagu sheegay midkii ugu cuslaa muddooyinkan, iyadoo magaaladan loo arko inay tahay albaabka laga gala Addis Ababa dhanka koonfureed iyo xuduudda Djibouti ee dhanka bari. nin ka mid ah shaqaalaha isbitaalka Dasiya waxa uu BBC-da u sheegay in muddo ahba ay jabhadu ku soo dhawaanaysay magaalada, markii dambana ay arkeen ciidankii dowladda oo qayb uga baxaya magaalada. Sargaal sare oo ka tirsan dhaqdhaqaaqa Amxaarada ee naama loo soo gaabiyo, kaasoo lagu magacaabo Tewodros Maryam, waxa uu sheegay in Itoobiya ay haysato laba waddo oo keliya. mid waa in TPLF laga adkaado oo dowladnimada Itoobiya la badbaadiyo, midna waa inuu dalku galo dagaal qaraar oo sokeeye oo ay dowladuna burburto. wuxuu ku dooday inuusan jirin dariiq saddexaad oo u furan Itoobiya. tan iyo markii ay TPLF qabsatay magaalada Dasiya, waxaa dhinaca Addis Ababa ka bilowday beegsi lagu samaynayo dadka u dhashay qabiilka Tigray. gabar qareen ah oo Tigray ah oo magaalada Addis Ababa ku nool waxay sheegtay in beegsiga qowmiyaddu uu bilowday. guryaha iyo goobaha la isugu yimaaday ee maqaayaduhu ka midka yihiin ayay sheegtay in lagala baxay dad Tigray ah. gaadiidka gaar ahaan tagaasida ayaa la joojinayaa iyadoo la eegaya aqoonsiga dadka, waxaana la baadigoobayaa dad Tigray ah, ayay tiri gabadhaas. waxay hadalkeeda ku dartay, ma dareemaya maanta inay Addis Ababa tahay magaaladii aan ku dhashay kuna soo barbaaray. hal sano ayaa laga joogaa markii uu ra'iisul wasaare Abiy Ahmed amray in duulaan militari lagu qaado gobolka waqooyiga ku yaala ee Tigray. tan iyo xilligaas kumanaan qof ayaa la sheegay inay ku dhinteen dagaalka, waxaana barakacday malaayiin kale, iyadoo ay qaramada midoobay sheegtay in 2 milyan oo qof ay bannaanka daadsan yihiin oo ay gaajo u dhiman karaan haddaan degdeg loogu gurman. mawjado xasuuqa ayaa la soo wariyey intii uu dagaalku socday, waxaase hadda oo ay kooxda TPLF ku soo dhawaatay magaalada caasimadda ee Addis Ababa laga cabsi qabaa inuu dalka oo dhan dagaalku saameeyo oo dhinac walba ay mawjado dagaal ka dilaacaan. talaadadii maamulka magaalada Addis Ababa ayaa shacabka caasimadda degan ugu baaqay inay hubkooda diiwaan geliyaan una diyaar garoobaan inay difaacaan xaafadahooda. ra'iisul wasaare Abiy Ahmed waxa uu bartiisa Facebook ku daabacay inay shacabku hub ka qaataan oo ay dhaqaale iyo nafba u huraan si ay u aasaan argagixisada TPLF, balse qoraalkaas ayay tirtay shirkadda Facebook iyadoo ku tilmaamtay colaad hurin ka soo horjeeda siyaasadda shirkadda. arbacadii shalay wuxuu Abiy ka hadlay xarun militari, waxaana uu ku dhaartay inuu aasi doono cadowga Itoobiya oo uu mar kale sharafta Itoobiya sare u qaadi doono. lama saadaalin karo faa'iidada iyo khasaarada xaaladda degdega ah ee la geliyay Itoobiya muddada 6 bilood ah, laakiin wakaaladda wararka ee Reuters waxay sheegaysaa inay adag tahay in Itoobiya ay burbur ka badbaado haddii dagaalka xal laga doono oo Abiy uu xukunka isku sii dhajiyo, Tigrayna dagaalka sii wadaan. waxyaabaha walaaca leh waxaa ka mid ah in kooxda xoreynta Oromiya ee OLA ama Ola qofba sida u yaqaano inay ku jirto dagaalka iyadoo ka garab dagaalamaysa TPLF. kooxda dagaalka ku biirtay ee difaaca Oromiya ayaa iyadu muddo ka soo horjeeda dowladda. isbahaysiga labadan koox wuxuu abuuri karaa kooxo cusub oo ka dilaaca gobollada kale ee Itoobiya, taasoo u dhammayn karta Itoobiyada weyn ayuu leeyahay
wariye madax bannaan oo CNN ka la hadlay. xukuumadda Abiya waxay ku eedaysay kooxaha ka soo horjeeda inay xasuuq wadaan, halka qaramada midoobay ay sheegtay in xukuumadda Abiya la baarayo oo loo haysto gaboodfallo ay ku kacday muddadii uu dagaal ku socday. bishii Nofeembar 2020, Abiya wuxuu si uusan fahmin ugu dhawaaqay burburka Itoobiya sababtoo ah wuu ogaa culayska TPLF, jabhadayntooda, diidmada gobollada qaar ee xukunkiisa, inay dhalan karaan kooxo badan oo hubaysan, in qowmiyaduhu wada hubaysan yihiin, isna diidan yihiin badankood. sidaa darteed xal aan dagaal lahayn ayuu ku abuuri karay Itoobiyada uu caashaqay oo ah mid dowladda dhexe awood leedahay, ayuu yidhi khabiir sare oo ka tirsan macad darsa mustaqbalka Afrika oo fadhigiisu yahay waddanka Koonfur Afrika. ilaa hadda ra'iisul wasaare Abiya kama quusan inuu dagaal uga adkaado dhammaan dadka ka soo horjeeda. ciidanka dowladda dhexe waxaa ka muuqda niyad-jab, halka Tigree oo 27 sano dalka xukumaysay ay weli haysato hub xoog leh iyo kumanaan ciidan oo daacad ah. waa adag tahay inay Itoobiya wejigan uga badbaado burbur haddii uusan Abiya qaadan dariiq cusub ayay badi leeyihiin qoraayaashu, xilli xoogga hubaysan ay ku soo dhowaanayaan magaalada caasimadda ee Addis Ababa. TPLF waxaa laga shaki qabaa inay helayso gacan shisheeye, halka isbahaysigii uu Abiya la samaystay Soomaaliya iyo Eritrea uusan waxba ka faa'iidin xilligan uu ku jiro xaaladda adag. maxay kula tahay adiga?